gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Awdalna waxa uu ka qayb galay xaflad qalin jabin aheyd oo ka dhacday dugsiga Waabari ee magaaladaasi Boorame. Cabdi Axmed ayaa warbixinta magaalada Boorame ka soo diray. munaasabadan qalin jabinta oo ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, siyaasiyiin, aqoon-yahano iyo gudoonka waxbarashada ee gobolka Awdal waxa ku qalin jabinaya 160 arday oo bartay luqadda Ingiriisiga iyo kombiyuutarka kuwaas oo ka baxay macadka barashada kombiyuutarka iyo luqadaha ee Waabari ee magaalada Boorama. munaasabadan ugu horeyn waxa ka hadlay maamulaha macadkan Mudane Cabdilaahi Axmed Cumar waxa uu ka sheekeeyay ardaydan maanta qalin jabinaysa iyo waxyaabihii ay barteen. waxaa la aasaasay afartii bishii sagaalaad 2007 waqtigaas oo lagu aasaasay number aad u kooban marxalado kala duwan oo soo maray kadib markii hawlwadeennadu ay dadaal badan sameeyeen dugsigu uu tadawuray isna horumar ayuu sameeyay wuxuu markaasi lagu soo daray aaladda kombiyuutarka ayaa lagu soo fiiriyay waqti dhexe kadib dugsigu uu sii balaadhay waxaa lagu soo daray haddana dugsiga sare ee secondary-ga oo sanadkan ardaydii u horeysay ay bixi doonaan insha Allah waxa kale oo dugsiga uu leeyahay marka la yiraahdo waxbarashada formalka dugsiga hoose dhexe iyo sare uu isku xidhan yahay luqadda Ingiriiska xirfadda kombiyuutarka waxa kale oo dugsigu bixiyaa waxbarashada dadka waaweyn oo iyadna runtii baahi loo baahnaa oo meesha ka maqnayda hadda wax ka dhigataay marka la isku soo wada geeyo waa 100 arday oo iskugu jira dufcadaha kala duwan ama qaybaha kala duwan oo dugsigu leeyahay runtii guud ahaan marka la eego dufcadda lixaad lagu daro ardaydii ilaa hadda ka qalin jabisay 920 arday weey inta dhamaysatay ee qalin jabisay oo taa maanta ay u dambayso. sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay gudoonka waxbarashada ee gobolka Awdal agaasimaha cusbitaalka Boorama Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed Aye mas'uuliyiin ka socotay jaamacadaha Eelo iyo Camuud ee magaalada Boorama ku yaala iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka wadani Mudane Axmed Muumin Seed ayaa waxay amaan u jeediyeen maamulka iyo macallimiinta macadka barashada luqadaha iyo kombiyuutarka ee Waabari ee magaalada Boorama waxayna ku baraarujiyeen inay sii wadaan howlaha horumarka ee dhanka waxbarashada oo ay gobolkan ka wadaan. mid ka mid ah ardaydii maanta ka qalin jabisay macadka barashada luqadaha iyo kombiyuutarka ee Waabari ayaa iyaduna madashan waxay ku soo bandhigtay waxyaabihii ay ka baratay macadkan. Today is a great day for me and it's a great day for us. Really, I can't say in words what I'm feeling today. Before I start my speech, I would like to thank my dear teachers. Really, during my learning of English, they give us a lot of encouragement and they sacrifice us their time. Really, thank you doesn't make any sense, but by heart I would like to say my teachers thank you. gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Boorama Mudane Maxamed Maxamed Faarax Dheereste oo madashan isaguna ka hadlay ayaa waxa uu dardaaran u jeediyay ardayda maanta ka qalin jabisay macadka barashada luqadaha iyo kombiyuutarka ee Waabari. maskaxda isu geyno wax badan bedeli karnaa ayaan qabnaa kulli toole waxaan ilaahay isku mid Waabari han noolaado wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland Mudane Maxamed Jaamac Abgaal oo gabagabadii munaasabadan qalin jabinta ka hadlay ayaa waxa uu hadalo dardaaran u badan u jeediyay ardayda maanta qalin jabisay wuxuuna ku amaanay maamulka iyo macallimiinta macadkan horumarka dhanka waxbarashada ay gobolkan ku soo kordhiyeen. waxa yaab leh aabood ba ka soo saaray jaamacad ilaahay jaamacad ba ka soo saaray ma shaqeeyo aabood inankii loo barayay wax inuu arrinkaa wax ka bedelo haddii uu tahriibu jagada hadhay iga soo daba diray yiraahdo war maynu aqbali karaynaa dee talaa laynaga rabaa waxa laynaga rabaa ma waxbarashada inay wax ka dhiban yihiin ma waalidkeena wax ka maxay dhibaatada heerkan inuu kalifaysaa haddii aynaan arrinkaa xal u helin iskuulka aan imika bilowna ka soo baxayno ilaa jaamacadda waalidka aynu ku cadibayno micno badan inoo samayn mayso waxa khasaaraha ina kama imanayo waa inaynu lab su'aasha isku weydiino hambalyo intii wax soo baratay hambalyo intii wax soo bartay hambalyo waalidiinta hambalyo mas'uuliyiinta aad iyo aad baanidin hambalyo waxaana gabagabadii xafladan shahaadooyin lagu gudoonsiiyay 160 arday ee wiilasha iyo gabdhaha isugu jira kuwaas oo bartay luqadda Ingiriisiga iyo kombiyuutarka kana baxay macadkan Waabari. si kastaba ha ahaatee macadka Waabari oo faracyo kala duwan magaalada Boorama ku leh ayaa waxa uu ka mid yahay macadyada dhanka horumarka waxbarashada ka sameeyay gudaha gobolka Awdal waxaana ka soo aflaxay arday aad u tiro badan kuwaas oo xilligan ku shaqaysta waxyaabihii ay macadkan ka barteen. Cabdi Fataax Axmed Somali Channel magaalada Boorama.